Awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawada kusoo dhawow channelka Aqoon Official. Haddaad channelka cusub tahay subscribe saar, like asxaabadaada u sii share garee. Maanta waxaan baran doonaa sida loo sameeyo warqadda farqurxinta adoo isticmaalaya laptop-kaaga ayaan isfiirin doonaa. Ugu horeyn waxaad soo galaysaa Microsoft Word-kaaga soo kicinaysaa, kadibna waxaad ka dooranaysaa insert oo halka rabtid inta page ama inta column aad rabtid ayaa ka dooranaysaa. Kadib waxaan dhahnay calaamadaas oo yellow ayaan fiirinaynaa. Waxaan dhahaynaa marka insert, kadib waxaan ka dooranaynaa insert row below oo kusoo daray waa ujeedaa. Mar kale ku laabanaynaa haddana halkaas ku dhahaynaa right click insert row below, kadibna wuu kusoo daray. Haddaa mid kale rabtid sidoo kale waa dhihi kartaa, haddana halkaas ka sii wadaysaa intaa u baahan tahay ayaad ka dhiganaysaa. Marka hal page dasmis inta kale waa copy gareynaysaa. Marka inta hadda waa step. Waxaan fiirinaynaa marka step kale oo loo sameyn karo isla sidan. Waxaan dhahaynaa insert ayaan ku dhufanaynaa, table ayaan ka dooranaynaa, kadibna waxaan dhahaynaa insert table ayaan ka dooranaynaa. Halka ay ku qoran tahay number of columns ayaan ka tirtiraynaa. Numberka u baahan tahay tusaale 1 aan dhahaa 1 column. Number of rows kana inta u baahanahay ama inta xariiq ah u baahan tahay adiga marka ayaa ka dhiganaysaa. Tusaale waxaan dhahaa aniga waxaan u baahanahay 30 iyo waxaan ka dhiganaa marka 9 oo rows ka ah. Number of rows ka aan ka dhigtay, kadibna waa kana soo diyaarsan hal mar aan soo wada galay. Kadib waxaan sameynaynaa marka intaana select gareynaynaa oo halkii page ayuu la facaaday 39 xariiq. Waa ka badsan kartaa, waa ka yaraysan kartaa inta adiga marka u baahan tahay. Select dhamaantoodan dhahay, kadibna waxaan imaanaa marka design halka ku qoran tahay design. Marka imaado kadibna waxaan ka dooranaa marka borders ayaan ka dooranaa. Borders kadibna waxaan kasii dooranaa outside border ayaan dhahaa marka waa borderkii geesaha ahaa wuu ka qaaday. Marka hadda xoogaa way isku dhadhow yihiin. Marka waxaan sameynayaa saddex u kala jaranaa markaas oo uu noqdo lines mid qurux badan oo u noqdo saddex u kala jaraa. Marka saddexdan gooni, saddexdan kalena waxaan ka dhiganaa marka asagana gooni ayaa ka dhiganaa. Sidaas aad wadaysaa oo saddex xabo xariiq markaa tirsaday kadib waxaan dhahay enter. Saddex kale kadib enter ayaan dhahay. Sidaas aad wadaysaa. Haddaa rabtidna sidiisa ayaa ku daynaysaa. Marka aniga waxaa ila qurux badnaatay inaan isku raacino saddexdan anaa isku raacina. Sidaa ayaa jeclaaday. Haddii adiga fiican design kale aad haystidna waa ka dhigi kartaa. Asxaabta haddaad channelka cusub tahay subscribe saar, asxaabadaada u share garee. aad u mahadsantihiin. Marka waa qaybta oo nidaamin lahayd si ay u noqoto farqurxintaada mid ama buugga uu noqdo mid heer sare u noqdo oo fiican oo standard ah. Sidaa ayaa u habaysanaysaa marka oo saddex ayaad u habaysanaysaa. Haddaa rabtid 4 ka dhigo, haddaa rabtidna space-ka hadda aan sameynayo saddexda waa iska digi kartaa sida hore usoo sheegnay. Marka sidaas ayaa u nidaamsan kartaa asxaabay. Wuxuu aad u anfacaa marka macallimiinta oo kale haddii arday u diyaarinayaan buug farqurxin oo kale aad ayuu u anfacaa. Marka sidaas darteed igu kaliftay inaan muuqaalkan ka diyaariyo. Waxaa laga yaabaa dad badan inay ka faa'iidaystaan. Marka hadda waxaan diyaarinay inta sida u rabnay oo buuggii underline-ka ama xariiqmankii oo u sameynay wuxuu noqday mid qurux badan oo noqday. Sidoo kale marka waxaan u sameynaynaa header iyo footer si uu noqdo buuggaaga in buugga aad leedahay macnaha uu qof kale ka isticmaalin ayaan ka dhigano. Sidoo kale waxaa ka dhigi kartaa space-ka mid waa soo yareyn kartaa ama waxaa ka dhigi kartaa space oo aad u fiican ayaa ka dhigi kartaa. Tusaale waxaa ka dhigtay space-ka 1.5 aan ka dhigtay oo space-ka aan bedelay. Marka number line-kii ayaa waxaa sameeyay space-kiisa waa habeeyay mid oo nidaamsan aan ka dhigtay. Sidoo kale marka hadda waxaan fiirinaynaa sida loo sameeyo header-ka iyo sida loo sameeyo footer-ka ayaan fiirinaynaa. Halkan ugu sareysa imaanaynaa marka oo insert-ga ah, kadibna waxaan ka dooranaynaa insert-ga. Header-ka ayaan rabnaa inaan sameyno. Header-ka ayaan ka dooranaynaa. Adiga ku qanciya ka dhigo. Aniga midkaan aan ka doortay marka style-kiisa midkaan ayaan ka dhiganaa. Halka ay ku qoran tahay type the document aan ku qoraynaa marka tusaale waxaan dhahaynaa handwriting aan dhahaynaa marka halkaan ku qoranaynaa oo handwriting, kadibna bracket aan kusoo xiraynaa oo dhankaana bracket geli, dhankaana bracket soo geli. Marka
haddaa leedahay reference meel lagasoo tixraaco oo kale waad raacsiisan kartaa phone number oo kale ama magaca iskuulka haduu leeyahay oo kale waa gelinaysaa. Tusaale waxaa soo qortay www ama youtube.com aqoon official channelkii aan youtube-kayga ahaa ayaa halkaa ku qoray. Marka aqoon official ayaan ka dhiganaa. Adiga marka waxaa rabtid ka dhigo markaas ama iskuulkaaga magaciisa ka dhigo sida marka adiga aad jeceshahay. Intaa waxaa waa header-ka waay. Marka waxaa noo dhiman footer-ka qaabka loo sameeyo isna waa footer-ka waa qaybta hoose ayuu ku yaalaa. Marka asaga qaybta hoose aan imaanaynaa oo paragraph-ka ama line-ka kan u dambeeyo qaybtiisa ayaa imaanaynaa si aan u sameyno footer-ka u sameyno. Halkaan marka waxaa ku leeyahay click ayaa ku leeyahay, kadibna waxaa soo qabanayaa footer-ka ama sida hadda oo kale meesha hadda ku laabo footer-ka soo dooro sida hadda header oo soo doorto oo kale ama maana halka u dambeysa imaam waa ka dooro. Marka halkaan ayaan ka dooraneynaa footer-ka kadibna style-ka adiga ku qanciya ka dooro. Aniga midkaan aan ka doortay. Halkaan waxaa ku qoraa marka tusaale teacher waxaan ku qorayaa teacher Cabdinaasir Cali. Halkaan ku qorayaa teacher Cabdinaasir Cali ayaa raacsiisanaya, isku soo gaabsanayaa Cali. Sidoo kale waxaa raacsiisanaya marka ma u baahan tahay reference-gaaga si lagaa soo tixraaco tel oo number-kaaga marka halkaan ku qoraysaa hadaa number u baahan tahay. Hadduu website yahay website-kaada halkaas kusoo qoraysaa si marka hadhowti qofkii buuggan ka helo oo kale oo kaaga soo codsado ama kaala soo xiriiro hadduu meel oo kaaga dhumo oo kale. Marka sidaan u diyaariyay oo habkan quruxda badan adigana sidaas u diyaarsan kartaa buug handwriting ah oo far qurxin ah oo laymankiisa diyaarsan yihiin ama xitaa wuxuu ka anfici karaa buug adiga aad samaysatay khulaaso inaad wax ku khulaasaysid aad rabtid oo laakiin buugaagtan caadiga aan ahayn oo buug adiga aad diyaarsatay waraaqadaada diyaarsatay ayaa u habaysan kartaa. Marka haddii aad sameynaysid khulaaso cashir aad ku sameysanayso oo kale aad oo kaaga anfaca. Marka aad u mahadsantihiin. Haddaa channelka cusub tahay subscribe saar, asxaabada u sii share garee. Mahadsanidin.